dufcadda 15aad ee ka qalin jebisay kulliyadda tababarada xirfadaha iyo farsamada ee Jigjiga Polytechnic ayay tiradoodu dhan tahay 304 arday oo bartay 17 xirfadood oo kulliyaddu ay bixiso waxaana munaasabadan qalin jebinta ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar mas'uuliyiin heer deegaana odayaal dhaqameedka qurbo joogta iyo sidoo kale marti sharaf waxaana ugu horeyn munaasabadan ka hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar oo sheegay in barashada xirfadaha kala duwan ay yihiin tubta laga baxayo saboolnimada sidee looga bixi karaa saboolnimada waa taalaadaba saboolnimadu haday tahay qof xanuunsanayo kale oo qof xanuunsanayo in la daawo u baahan yahay laakiin daawadii waxa dhiigga haduu ka socdo oo dhiiggu soo wuxuu baahay dhiig joojin buu baahay degdeg ah marka dhiig joojin waxa weeyaan inaad xirfad barato waa dhiig joojinta saboolnimada yaani maxaan ku raayay in xirfadii ku haysay waxa weeyaan yaani saboolnimadii ku haysay ee degdeg ah sidee maxaan ku raayay looga bixi karaa adiga qoyskaaga waa sabool inaad wax barataan rabtaa marka waxa weeyaan qofkii isagoo buka waa la daweyn karaa laakiin hadii la yiraahdo la daweey marka hore dhiigga laga joojiyo waxa dhiigba ka socda dhiig joojin baa lagu dhufanaya marka saboolnimadina waxay u baahan tahay marka hore in dhiig joojin lagu dhufto dhiig joojintina waa ina maxaan ku raayay waa nidaamkan polytechnicalka xirfadaha weeyaan madaxweyne Cabdi Maxamed Umar ayaa sheegay in barashada xirfaduhu ay laftabar u yihiin shaqo abuurka iyo sidoo kale isku filaanshaha xirfadlayaasha isla markaana meesha ka saarayso nidaamka mashaqaystanimada iyo dulsaarnimada qofka farsamo markuu leeyahay isaga shaqo abuurka abuuraya isaga dad u shaqeynayaan marka nin kasta wax soo barto waa inuu ku fikiro inuu isagu dad shaqaalayo laakiin isaga ina shaqaalayo maaha madaxweyne Cabdi Maxamed Umar ayaa sidoo kale tilmaamay in ka faa'iideysiga xirfadaha kala duwan loo dhaadhiciyay gobolada deegaanka si loo daboolo baahida bulshada isagoo xirfadlayaashan qalin jabiyay ku booriyay madaxweynuhu in xirfadaha kala duwan ay barteen ay uga faa'iideeyaan bulshadooda dawladuna ay la barbar taagan tahay waxyaabaha laga maarmaanka maxalli ka baahan yahay idinka in aad shirkad isku xidhantaan degmooyinka iyo gobolada nood Jigjiga kaliya maaha goboladii waxa looga baahan yahay farsamo waxa laga soo doonan waxa weeyaan degmooyinka gobolada halka kuraasi laga soo doonto sariir waxa weey maxaan ku raayay laguma sameeyo degmooyinka iyo gobolada waa in lagu sameeyaa waxa weey wood working farsamada soo barateen waa in degmooyinka halka laga helo transportiga ay ka jaban tahay marka waxa weeyaan farsamada soo barateen haday leertahay haday construct tahay dawladdu hadii leeyahay way ka caawin doontaa qalabka iyo waxa way wixii kale loo baahan yahay wasiirka xafiiska tababarada xirfadaha iyo farsamada ee deegaanka mudane Naasir Xasan ayaa sheegay in xafiisku wado ballaarinta kobcinta xirfadaha kala duwan si xal waara ay ugu noqoto saafteerida saboolnimada iyo kamira dhalinta horumarka qaybihiisa kala duwan fikirka mashaqaystanimada waxa jabinayo tubtii lagu jabinayo waa tubtan xirfadaha la barto sidaa darteed haddaan nahay annaguna sektarkii TVEDka haddaan nahay waan si labalaabanaa dadaalkeena sanadka soo socda 2009ka sanadkii hore 5,000 oo qof baan qaadanayd laakiin sanadka soo socda hadduu Ilaahay dhaado waxaan qaadanaynaa 10,000 oo qof baan qaadanaynaa maarayaha kulliyadda Jigjiga Polytechnic mudane Farxaan Maxamed ayaa isaguna sidoo kale tilmaamay in ardaydan qalin jabiyaashii ay ku soo beegmeen maanta waa fursad aan kuwii hore aynan heli karin baad hesheen marka hambalya baad leenahay kulliyadda Jigjiga Polytechnic ilaa xilligii la aasaasay 1994 waxa ka qalin jabiyay tiro arday oo dhan 7663 arday oo ay maanta dacfadan 15aad ee qalin jabinaysa ay ka mid tahay ardadaas oo bartay ilaa 25 xirfadood waxaan leenahay dadaalkii aad ugu soo jirteen maanta natiijadeedii maadaama oo taagantiin inaad ka midho dhalisaan waa wax muhiim ah oo loo baahan yahay intii ay socotay munaasabadan qalin jabintu ayaa waxa lagu soo bandhigay wax soo arka kala duwan ee kulliyadaha deegaanku ay soo saaraan iyadoo halkaasina ay ku soo indhiindhiyeen madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo mas'uuliyiintii kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabadan ay ku qalin jabinayeen ardaydan ka qalin jabisay kulliyadda farsamada xirfadaha iyo tababarada ee Jigjiga Polytechnic iyadoo halkaasina sharaxaad dheeri laga siiyay madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii la socotay xirfadaha kala duwan ee kulliyadaha deegaanku ay soo saareen waxaana gabagabadii munaasabadani abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey barayaashii hormoodka ahaa iyo sidoo kale ardaydii kaalimaha koowaad ku guulaystay waana kuwan ardayda iyo waalidiintii ka soo qayb gashay munaasabadan oo cabiraya dareenkooga 94 waxaan ka qaatay departmentiga la yiraahdo auto mechanic haddana mar labaad baan xiiseeyay inaan gacmahayga wax ku qabsado oo haddana markaasaan dib ugu laabtay haddana imika waxaan ka qaatay maadada la yiraahdo surveying oo aad u xiiseeyo
weli haddana mar labiyo mar saddexaad baan doonayaa inaan ka qaato markii labaad haddana mar saddexaad inaan ka qaato waxaan leeyahay markaad ummadda u soo jeesta gacmaha wax laga qabsada wax lagu gaadhaaye waxaan bartay departmentiga EMT engineer electromechanical engineering technology jigjiga polytechnic college guud ahaan shacabweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya salaamaya iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida waxaan ballan qaaday inaan shacabka deegaanka ee ku nool 93 degmo midna lagu qoro inaan ka shaqeynayno oo si daacad ugu shaqeynayno uguna adeegna musuqan la dagaalamino iyo saboolnimada anoo muddadan intaan soo wax baranayo maanta waxaan halkan hambaliyo uga dirayaa hooyadayda intaan garab taagneed iyo walaalahayga qaaliga oo asxaabtayda qaaliga waxaan ballan qaadayaa inaan hili hooba aan garab joogayo shacabkayga in garab joogayo aan hili hooba qaadaya waxaan barnay 3 sano waan barnay waxaan bartay level bartay waxaan ballan qaadayaa inaan baahida biyaha ee ka jirta dawladda Soomaaliya Itoobiya oo dabooleno oon anagu oo shaqo dawladda ka sugno anagu waxaan shaqayntan abuurno oo shaqo abuur sameysano waxaan leeyahay ardayda kala qanjirsan waxaan leeyahay hambaliyo Ilaahay waxaan leeyahay sarakacno fadhigeedina kulliyadda tababarada xirfadaha iyo farsamada ee Jigjiga Polytechnic oo la aasaasay sanadku markuu ahaa 1994 tirs taariikheedka dalka ayaa waxaa tan intaas ka qalin jabiyay arday tiradooda dhan tahay 7663 arday oo bartay xirfadaha kala duwan ee kulliyadda ay bixiso waxaana intii munaasabadan qalin jabintaasi oo lagu soo bandhigay riwaayado iyo fariimo ka turjumaya ahmiyadda mugga weyn ay leedahay barashada sanooyinka kala duwan ee kulliyadaha deegaanku ay bixiyaan